soo dhawaada warbaahinta dowladda SRTV iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay ee kala duwan ku sugan deegaankeena Soomaalida gaar ahaan caasimadda Jigjiga. Maanta halkan aan joogno waa xafiiska dakhliga deegaanka Soomaalida. Waxaan halkan shir jaraa'id ku qabanaynaa. Shirka jaraa'id oo ujeedadiisu daaran tahay inaan kaga hadalno waxqabadkii sanadii tagay 2017 tirsiga dalkeena iyo qorshayaasha dakhli ama dakhli urureed ama guud ahaanba shaqooyinka uu xafiisku qaban doono ee uu qorshaystay 2018 haddii la yiraahdo. waxaad ogeydeen dhowaan soo idlaatay oo soo gabagabowday qiimeyntii waxqabadka xukuumadda guud ahaan xafiisyada fulinta iyo bahwadaagtooda oo muddo 5 cisho ka socotay caasimaddeena Jigjiga. qiimeyntaasi waxaa lagu qiimeynayay guud ahaan qorshayaashii kala duwanaa ee xukuumaddu ay qorshaysay 2017 hay-adaha kala duwan ee dowladda. annagu maanta halkan waxaan rabnaa inaan idinkula wadaagno ama baahinta la wadaagno sidii caadadaba inoo ahaydba shaqooyinkii ugu muhiimsanaa 2017 sanadkii tagay inoo qabsoomay iyo qorshayaasha aan damacsannahay ama aan qorsheynayno ka dowlad ahaan iyo ka xafiis ahaanba sanadka soo socda ama hadda aynu bilowgiisa ku jirno 2018. guud ahaan deegaankeena waxaad la socotaan intii isbedelka ka dambeysay in shaqooyin muhiima oo baahiyaha shacabka wax badan ka taray hadday noqon lahayd arrimaha siyaasadda, hadday noqon lahayd arrimaha waxqabadka kaabayaasha horumarinta, iyo hadday noqon lahayd nabadgelyadaba in sanadba sanadka ka soo dambeysa ay soo taraysay shaqooyinka lixaadka lahaa ee lasoo qabanayay. sanadkan 2017 wuxuu ahaa sanadadii aynu soo dhaafinay sanadadii inta badan shaqooyin door ah oo muhiim ah ay deegaankeena ka qabsoomeen, hadday noqon lahayd horumarka, nabadgelyada iyo kaabayaasha dhaqaalaha intoodaba iyo arrimaha siyaasaddaba. shaqooyin muhiim ah ayaa deegaan ahaan inoo qabsoomay. shaqadaas unbay ka mid tahay shaqada xafiiska dakhliguna ay qabsoontay ka xukuumad ahaan. xafiiskan sidaad la socotaan wuxuu u asaasan yahay ama awoodihiisa ugu muhiimsan ka mid ah in la kobciyo guud ahaan dakhliga deegaanka Soomaalida si nidaamsan oo waafaqsan shuruucda bayaanada xeerarka jirana lagu soo ururiyo si baahida shacabkeenu ay qabaan looga jawaabo adeega aasaasiga ay u baahan yihiin. taasi iyadoo ay waajibaadka xafiiska tahay isagoo ka duulaya ayaa sanadka horraantiisii waxaa la qorsheeyey dakhli dhan 17 bilyan iyo 600 milyan oo dakhli ah in la soo ururiyo. dakhligaas oo ku kala asteysnaa ama laga soo kala ururinayay qeybaha kala duwan structure-ka dawliga ah ee leenahay maamul magaalo, heer deegaan iyo degmooyinka. markaynu eegno warbixintii hadda 2017 maadaama la socoteen in midiyaga inta badan aanu la wadaagayna mar walba halkii wax noo marayaan. sanadkan wuxuu noqday sanad guulo muhiima ama shaqooyin wanaagsan aynu ka qabanay howlaha dakhliga la xiriira oo aad ka arkaysaan qorshaheennii aynu dhiganay dakhli ka badan in aynu soo xareynay. taa macnaheedu kama dhigna guud ahaan dakhliga awoodiisii ama potentialkii dakhliga deegaanka ayaynu la soo wada baxnay, laakiin qorshaheennii inoo qorshaysnaa ayaanu intaynu soo saarnay dheerina aanu keenay ayaan leenahay. marka 17 milyan iyo 600 sanadka dabeeqadiisii waxaa soo xarooday 18 bilyan iyo 500 milyan baa soo xarooday, taasoo ka dhigaysa boqolkiiba 105%. boqolkiiba 105% bay ka dhigaysaa. waxay u eg tahay lacag ama cadad dakhli oo 900 milyan dakhli ka badan inaynu soo ururnay dakhligii aan qorsheynay. maamul magaalooyinka oo kale boqolkiiba 112% ayay soo ururiyeen. boqolkiiba 100 intay keeneen ba 12% oo dheeriyana ay keeneen. heer maamul magaalo waa boqolkiiba 79% ayay iyaguna soo ururiyeen qorshihii dakhligooda. heer deegaan boqolkiiba 108 ayuu soo ururiyay dakhligii qorshaysnaa loogu talagalay. taas waxay ka dhigaysaa in sanadka shaqooyin badan oo muhiim ah aynu ka qabanay howlaha ururinta dakhliga oo aad arkaysaan tirada dakhliga dheeriga aynu keenay. hore saan u sheegay taas macnaheedu kama dhigna in awoodda dakhliga deegaankeenu leeyahay boqolkiiba 100 aan ururinay iyadoo ay jiraan
goldololooyin aan u baahanahay inaan sanadka saxno. haddana waxaa ugu dambeyntii aynu ku guuleysanay in qorshihii dakhliga deegaankeena inoo qorshaysnaa aynu soo saarno ku dheeriyana keeno. degmooyinka oo kale waxaa u qorshaysnaa 3.5 bilyan inay soo ururiyaan. waxay soo ururiyeen 3.9 bilyan iyo 30 milyan meelahaasay soo ururiyeen degmooyinku, oo ka dhigan dakhli 412 milyan oo dheeriya keeneen degmooyinku. magaalooyinka waxaa qorshaysnaa 2.5 bilyan inay soo ururiyaan, 1.99 ayay soo ururiyeen. waa meelaha gaabiska ugu badan uu ka jiro maamul magaalooyinka. yaan qorshaha u qaadanay in haddii la yidhaahdo sanadkana aynu xoogga saarno. xafiiska heer deegaan waxaa qorshaysnaa 11 bilyan iyo 500 milyan in lasoo ururiyo. waxaa lasoo ururiyey 12 bilyan iyo 545 baa lasoo ururiyey, oo boqolkiiba 109 macnaha u dhiganta, ama boqolkiiba 108.74. marka shaqooyin badan oo muhiima ayaa inoo qabsoomay xagga ururinta. inta haddii aan kaga baxno ururinta dakhliga, waxaan jeclahay shaqooyinkii ugu muhiimsanaa xafiiska inoo qabsoomay muddadan hadda sanadka ugu dambeysay ah. tiirarka ugu muhiimsan ee xafiisku inta badan shaqadiisa ay ku qotomaan waxa weeye in kor loo qaado lana ballaadhiyo salka cashuurta. haddii salka cashuurta ama ilaha dhaqaalaha dakhliga uu ka soo gelayo uu kooban yahay, uu cuuriyoon yahay, waxay ka dhigan tahay dakhli badan inaana soo ururin karayn. marka halkaa lafteeda shaqooyin badan baa laga qabtay. waxaa la diiwaangeliyey 10,537 cashuur bixiye oo heerarkooda kala duwana ayaa lagu soo daray shabakada cashuur bixinta deegaankeena. cashuur bixiyaashaasi waxay noqon karaan heer deegaan, heer maamul magaalo iyo heer degmo, intaba way noqon karaan. waad ku khasban tahay inaad dakhli soo ururiso, inaad cashuurtaada ballaariso, ama ilaha dakhliga aad leedahay ay ku ballaadhaan, ama dadka cashuur bixiyaasha aad leedahay iyaguna ay tiradoodu ballaarato. sax waa loo baahan yahay. waxaa kaloo iyadana muhiima in la xaqiijiyo wacyigelinta ama kor u qaadida wacyiga cashuur bixiyaasha ku aadan cashuurta muhiimadda ay u leedahay jiritaanka dowladnimada, iyo cashuurtu muhiimadda ay u leedahay muwaadiniinta, iyo inay muwaadiniintu cashuurta bixiyaan, iyo cashuurta la bixiyo wax lagu qabto. fagaarayaal kala duwan baa inta badan hogaaminta iyo xafiiska iyo heerarka kala duwan ee xukuumadda ay ku qabteen. marka tiro 120,000 oo cashuur bixiyo heerarkooda kala duwan in fagaarayaal si toosa fogaal arag iyadoo la isticmaalayo midiyaga kala duwan, oo ay kamid tahay tan maanta aynu fadhino ee baahintan gaarka loo leeyahay iyo dowladduba ay duubayaan. ayaanu qorsheynay bay ahayd 116,000 oo qof ayaa la gaadhay ama la baraarujiyey. loogu talagalay howlo programmo loogu talagalay cashuurta iyo muhiimadda ay leedahay. hadday noqon lahayd madadaalo, haddii ay noqon lahayd maaweelo iyo hadal caadi iyo tiraab iyo tix labadaba, intaba waa la sameeyey. inta badan waxaa xoogga la saaray isagana oo kor loo qaaday nidaamka hanti dhowrka cashuuraha. cashuurtu ama dakhli ururintu waa waxyaalaha ugu nugul halista u ah inay lumaan, ama la xisaabtankeedu u baahan yahay mar walba in lala xisaabtamo. waxaad u baahan tahay, ama institutionka ama hay-addaasi u baahan tahay, in dabagalka kor loo qaado, in hanti dhowrka la xoojiyo, iyo in taakulada iyo garab istaagga howlwadeenada shaqada qabanaya mar walba xoog loo saaro. marka waa shaqooyinka ugu muhiimsan xafiisku qabtay, in hanti dhowrka cashuuraha kor loo qaado. hanti dhowrkaasi maxay noqon karaan? hanti dhowr lagu fulinayo cashuur bixiyayaasha laftooda. cashuur bixiyayaashu maadaama ay declare gareeyaan inta badan ay leeyihiin cashuurtiina lagu lahaa waa intaas, ma sax baa cashuurtan uu soo report gareeyey, ma khalad baa? shuruucda iyo bayaanadu maxay ka qabaan? waxa ka dhiman sidee loo sixi karaa? inta badan waan sameynaa. waxaa kaloo hanti dhowr lagu sameeyaa hay-adaha dawliga ah ee iyaguna loogu talagalay inay dakhliga soo xarooriyaan. iyagana kuwaana waxa lagu sameeyaa hanti dhowr cashuur bixineed baa lagu sameeyaa. marka kor baan u qaadnay hanti dhowrka cashuuraha, kor baan u qaadnay. xafiiskani cudud shaqaale oo badan buu leeyahay. cududda shaqaale inta badan isagaa gacanta ku haya, oo strategic pillarskiisa ay kamid yihiin. cududdaa shaqaale xafiisku leeyahayna tababaro iyo taakuleyn iyo in wacyiga iyo garaadkooda kor loo qaado, oo mar walba ay noqdaan cudud shaqaale oo ku hubeysan xirfadihii iyo farsamooyinkii loogu talagalay inay shaqooyinka ku qabtaan. cudud shaqaale oo ka nadiifa lunsiga, eexda, qabyaaladda iyo musuqmaasuqa laftooda. mar walba sidii kor loogu qaadi lahaa aqoontooda, ay noqon lahaayeen kuwo adeegii loo baahnaa bixinaya. ayaan shaqooyinka ugu muhiimsanaaye
qabsoomay ahaa